أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون الحمد لله فإن رب العالمين. تولوا فقل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إخوة الأعزاء ولا ليال إن شاء الله إلهي hadduu noo qadaro waxaanu halkan ka oran doonaa kelmad taas aan ugu dan leeyahay in ay naftayda iyo tiinaba ay u noqoto waano iyo wax ku qaadasho. kelmadeena maanta ama muxaadaradayada waxay ku saabsan tahay haddii alla idmo القرآن فضل القرآن قراءة القرآن الكريم وأحوالنا معه أو مع القرآن. فضل إلهي سبحانه وتعالى قرآن كان كريم كاه إن آن برنه كدقنه حفظنه استعمالنه وإلهي سبحانه وتعالى ويالي iyo xaalka aan kaga sugannahay haddaanu nahay bulsho xaalka aan kaga sugannahay in aanu wax ka taataabanno. waxaa hubaal ah in badan inay culummada islaamka ay ka qoreen kutub fara badan oo ka hadlaysa culuumul qur'aan iyo fadliga qur'aanka uu leeyahay. waxaa badan oo in badan laga hadlay in maaragtaa qur'aanka fadligiisa maaragtaa siyaabo badan oo kala duwan loo cadeeyay. waxaan marka uga dan leeyahay in aanu soo celcelinno ka hadalno mar walbana aan qalbiga ku hayno in aanu ka hadalno qur'aanka li'annahu qur'aanka waa kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu koonkan u soo dejiyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisu wuxuu ku yidhi إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآن كان وكان وحوي وهنون يهدي للتي هي أقوم وحضتك كهنونين يا تيتوسنت مركا أساقو دنبا هنون أساقو دنبا هنون haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu si gaar ah u taabtay inuu qoom bishaaro u yahay la yidhaahdo mu'miniin wayubashiru lmu'miniina aladiina yacmaluuna alصaalixaat waa kuwa camalka wanaagsan la yimid oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu raali ka yahay la yimid kuwaas ayuu u yahay bishaaro gaar ah. meesha ilaahay meelo kale uu ku yidhi gaaladu iyo dadka aan rumaysnayn qur'aankan wuxuu u yahay xujo iyo qowmamo iyo shallaay. haddaba maadaama mu'miniinta bishaaro u yahay maadaama uu qur'aanku hanuun yahay waxaa lagama maarmaan ah ikhwati al-a'izaa waxaa lagama maarmaan ah in la soo celceliyo ka hadalka qur'aanka kariimka ah in asagoo siyaabo kala duwan loo sharxayo siyaabo kala duwan loo cadcadeynayo in aan qur'aanka iyaga isticmaalno ka hadalno oo aan maaragtaa baraarujinno. fadli qur'aan rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan
ayuu ka yidhi axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu sheegay fadliga qur'aanka uu leeyahay lama soo koobi karo xadiista mashhuurka ah waxaa ka mid a xadiiskii cusmaan bin cafaan radia allaahu canhu uu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxaa idinkugu khayr badan dadow midka qur'aanka baranaya oo markaa asagay baraya dadka marka qur'aanka barashadiisa iyo tafsiirkiisa iyo macaanidiisa iyo ku dhaqankiisa iyo in la gudbiyo waxa weeye waa khayrka adduun iyo aakhiro ayaa halkaa nooga jira marka waa inaan ku dadaalnaa oo aan baraarujinaa oo laga hadlaa oo la akhriyaa oo la bartaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu ka sheekeynayay fadliga qur'aanka uu leeyahay wuxuu yidhi man qara'a xarfan min kitaabillaah qofka akhriya xarfi xuruufta kitaabka ilaahay ka mid ah falahu bihi xasana aw biha xasana xarfigaas uu akhriyey waxa uu uga sugnaaday xasana waalxasanatu bicashri amhaaliha xasanaduna waxay leedahay 10 la mid ah 10 la mid ah xasanadu way kordhaysaa oo waxay noqonaysaa 10 iyo wax ka badan marka bicashri amhaaliha rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa aquulu alif laam miim xarfun ma oranayo xarfi weeye kelimad keliya oo xaraf ah weeye oran maayo alif laam miim bad waxaan oranayaa wii rasuulka calayhi salaatu wasalaam alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarfun alif waa xaraf 10 jibaar lah iyo wax ka badan leanna waxaa noo sheegaya xasanaadku inay tarmaan oo ay kordhaan xadiiska ibnu cabbaas baa noo sheegay ee macruufka ahaa oo rasuulka ka wariyey calayhi salaatu wasalaam fii maa yarwi can rabbih rabbigiis wuxuu ka wariyey oo ahaa xadiiskaas muxuu ahaa wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala xadiis alqudsigaa ku yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ina allaha kataba alxasanaati wasayi'aat ilaahay wuxuu qoray xasanaadka iyo sayi'aadka marka uma bayana dalika kadibna waa uu caddeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala xasanada iyo sayi'ada ilaahay waa uu caddeeyey faman hama bixasana qofkii xasana hamiya waxa weeye xasanadaas uu hamiyey falam yacmalhaa uusan camalkeedana la imaanin falahu bihaa xasanatun kaamila qofkaasi wuxuu leeyahay xasano dhammaystiran hamiga uu hamiyey xasanada uu ku hamiyey wuxuu leeyahay xasano dhammaystiran hadda ma uusan samayn waman hama qofkii ku hamiya xasanada oo markaas wayacmalha sameeya falahu 10 amhaaliha wuxuu leeyahay 10 jibaarkeeda ilaa 700 ضعفin ilaa iyo 700 oo laablaabid la sii laablaabo wa adcaafun kafiira iyo waliba sii badin ilaahay uu sii badbadinayo waa halkii xasano ee aad samaysay dalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa ilaahay baa bixiye fadliga xasanaa hamisay waad samaysay xasanadaasi 10 jibaar ilaa 700 ilaa laablaab ilaahay uu garanayo ayaa halkaagii xasanaad ilaahay kugu tarminaya ayib waman hama bisayi'atin qofkii markaa sayi'a hamiya inuu la yimaado wax un xumaan ah oo falam yacmalhaa aan xumaantaasi iyo sayi'adaasi samaynin falahu bihaa xasana iyadana wuxuu hamiyey xumaan laakiin ma uusan samaynin xasanu leeyahay ma waxaa lagu helay xasanadu haminta uu hamiyey sayi'ada miya xasano lagu helaa maya
wuxuu xasanada ku helay waa uu sameyn la'aanta uu sameeynin wuxuu hamiyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ugu bedelayaa بدل وناكسن إن سيئاتي حسنة ugu bedelo qofkii maadaama uusan la imaan ومن يعملها hadaba qofkii sameeya xasanadi oo sayi'adi waxa uu leeyahay waxa loo qorayaa sayi'atun waahida hal sayi'a kaliya loo qorayaa loo badbadin maayo maxaa yeelay in allaha la yadlimu an-nasa walakinna an-nasa anfusahum yadlimun ilaahi dadka ma dulmiyo dadka iyaga is dulmiya waxa la timid baa lagu sameyn oo xumaan ah laakiin waxa la timid oo khayr ah ilaahay bay u taala intuu ku gaarsiinayo darajaadkeeda waxayna ku xiran tahay niyada aad kula timid maxaa la yiraahdaa qaabkaad u sameysay ficilka aad ula jeedada aad ka lahayd arimahaas oo dhan baa xeerinaya marka ilaahay waxaan weydiisanaynaa in uu noo kordhiyo xasanaadka iyaga maalin aan u baahannahay oo maalmaha baa ugu baahida badan ay bini aadamku tahay yawm la yanfa'u maalun wala banuun illa man ata Allah biqalbin salim hadaba taa waxaan ka hadlaynay xasanada inay badanayso iyo wixii ku soo arooray ama mawduuca yagi aha quraanka iyo fadligiisa rasuulka kaleeyhi salatu wasalaam hadith عقبة ابن عامر رضي الله عنه ورسولك كوريي عليه الصلاة والسلام مالمها كمدة رسولك أيا صوبحي وحي جوجين يجو أصحاب الصفاء مساجد كأي جوجين فقراء المؤمنين مركب مساجد كسيحنجري يأهاين ضدك الطلبات طالبين تأهاي وقرآن كي الدين تبرنيين وأهاين مركا فقال وحيره رسولك عليه الصلاة والسلام أيكم كينيبا يغدو كلها كل يوم مال والباء إلى البطحان وهذه البطحان ليرهده العقيق ماشى بطحان العقيق ليرهده يا سوحي وكلها يقفكين أو فيأتي منه كلي ماذا بناقتين لبا خلوط أو كوامويني أو كرسي واوين كوماويني أو كرسي واوين كلي ماذا قطيعة الرحم أسقو أن دنبي قلين صوبوبين قلنا أو قرابتنا أن قوينين إلهي سبحانه وتعالى فضله سكو صاهرة فقلنا وحان نري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي يو نحن نحب ذلك كوا جعلنا ووحان ربنا يا ديدية إن إلهي سبحانه وتعالى ما أنت فضل قف أكرديه وحاوية ضدكو ووحي جعليهن زيادة مركا رسولك وحير عليه الصلاة والسلام أفلا يغدو أحدكم ميو أحد كين كالله أو إلى المسجد مساجد كآدو إلى المسجد مساجد كآدو أو فيتعلم أصابرته أو يقرأ أما صو أخريه آيتين من كتاب الله لبا آيات أو كتابك إلهي آيات كسا عز وجل خير له أيها خير بدن من ناقتين لبدي ناقضات اللي قصوا شيكي بطحان العقيق لقصوا قادني وحاوغا خير بدن لبدا آيات مساجدك وكصوبرتي الله أكبر والثلاث خير والثلاث خير ثلاث حدي وكبدينا أو سدح كدكتا آياتنا وهو خير بدن تاي سدح آيات سدح هالات إنه هلا أو ما أركتها هالات وكسو هلا ماشي أما هدو بديو أفر كديجو ويكسي بدن مرك أذيك وجو حرنتها أذيك وجو حرنتها ولا إن أد ما أنت أد كد داشو إن أد أكون كاجا بوحسه أو خيرات كبوحسه أو أد قرآن كإلهي وجودواته أو أد برته وواحد يوكو أنفعيا في الدنياك والآخرتك وحوي وحكو أنفعي حديث كاس مسلم باوريي هدبا
وفربدن يحي فضل القرآن كأحاديث كسو أرورتي رسولك عليه الصلاة والسلام حديث عائشة رضي الله عنها أي كورسي وحويره الماهر بالقرآن قفك قرآن كآت كأيقان أو برتا مع سفرة الكرام البررة وحو لمد يهي قفكاسي سيدا ملائكة الإرادة كرام البررة أيو لمد يهي والذي يقرأ قفك أقرن يا قرآنك أو كد ذال يا قرآنك ويتعتع فيه أو مركا أو كقفقفيه أو كأذقيه وهو عليه شاق أو مركا سنبك يا قرآنك فله أجران لما أجر بليه أجر وأجر كي برشده أجرنا وأجر كي أقرنته لو ذاس أجر بليه وحوي مركا إن قفك وصلحين ورد يومي أو وصلكو أقريه قرآن كي إلهي كنا حفظيه كنا برته كنا نقمه وحوي ونصيب درويه أسوأ كتابك إلهي وهريا له رسولك عليه الصلاة والسلام مال محكم ذا وحاويمت أبو ذر الغفاري رضي الله عنه إلهي أكرال النقضاء مركا وحو كير يا رسول الله رسولك إلهي أوصني إيدر دارا بير رسولك عليه الصلاة والسلام سيابك للدون أيا لو ويديستي سؤاشا إيدر دارا أصحابته سيابك للدون بي ويدين رسولك عليه الصلاة والسلام مركاسو جوابك للدون رسولك أكبحي عليه الصلاة والسلام أولا وحوي مركي لو يدي رسولك عليه الصلاة والسلام أو صحابي ويديه وحو رسولك كجد جوابه جوابته كهبون صحابي جاس يوحى ومركاسي وغبا هي مارتا وسؤاشي سكوسا ليسنته سيدا درتين أبي ذر مركو ويديه رسولك عليه الصلاة والسلام سؤال جوابته وحو كبحيه عليك بتقوى الله عليك بتقوى الله إلهي سبحانه وتعالى عبسديسة دوش هذا هاتو كعبس إلهي سبحانه وتعالى كدورس إلهي سبحانه وتعالى فإنه رأس الأمر كله محايا لي عبسدا الله كعبسته وأمرك وحوي كان أقوى وي حديثا عبسي جيرين وحوي قفكو يحشود الله كحشونه يكدور سشو إلهي يكدور سنة حديث جيرين وحوي وحو دونو سمين يا قفكو سيادرتين كعبسو واتر إلهي سبحانه وتعالى النبي محمد عليه الصلاة والسلام أسوق النبي يسيئة وكير يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله مركا وحير عليك بتقوى الله تقوى إلهي دوش هذا هاتو طيب أبي ذر وحوي وحير مركا ثم زدني يا رسول الله إيه زيادة وحكا يقدر نصيحة كلا يقدر وصية كلا إيشك مركز يري عليك بالتلاوة القرآن قرآنك أخرنتيسا دشادها آت أخر قرآنك فإنه قرآنك نور في القلب ونور في الأرض وإفتين يليل الدنيا دا أتكون نوشة نور في الأرض ودخر في السماء إلهي سبحانه وتعالى روامد وكو كايدينيو أو كو أوليو أو لغو ديغيو مركا حديثك ابن حبان باوريي وانا صحيح شيخ محمد ناصر الدين الألباني وصحيح يالي مركا إخواني في الله آد با لوغا هادلي فضلك قرآنك علماء السياوة بدن بي اوغا هذا الشيء حدبا وحان ربا أنه إنان اوغا قدبنه حالنا معه سيدي أن أيا أولاد قنا قرآن سيدي السلف كي صالحة أها وقدق بجرين قرآن محا حال كودو أها سلف كي صالحة أها سان اوغا ضيانه
khayrka ay u hormareen waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaalo badan buu ka dardaarmay oo uu quraanka kaga dardaarmay asxaabtiisuna ay qaateen xadiiskii haddaanu soo qaadan abi muusa al-ashcari radiyallahu anhu wuxuu ka mid ahaa axad min as-saxaaba oo uu rasuulka yiri calayhi salaatu wasalaam laqad uutiita mizmar min mizamir aali daawud uu ku yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa lagu siiyay mizmar min mazamir aali daawud la yiri buu ka mid ahaa xadiis uu wariyay qaal rasuulullah sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahi wuxuu yiri mathalul mu'mini mu'minka mathalkiisa alladhi yaqra'u al-qur'ana kaas oo qur'aanka akhrinaya mathal al-utrija waxa weeye sida miro la cuno oo utrija la yiraahdo waxa weeye riixuha tayyibun wa ta'muha hul way arfaysa miraha wuu arfayaan dhadhankeedana dhadhansigeedana waa wax macaan buu yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin qofka mu'minka ah aan qur'aanka akhrinin wuxuu ku sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam ka mathal tamra sida wuxuu ku sheegay timirta oo kale timirtu waxa weeye maxaa la yiraahdaa waa macaanta laakiin riix ma laha qofka munaafiqa ee qur'aanka akhriya wuxuu la mid yahay rasuulka calayhi salaam ka riixaana sida riixaanta way arf badanta aad bay arf badanta laakiin taamigeedu waa mur waa qaraar lama dhadhansan karo laakiin qofka ee munaafiqa ee aan quraanka aqrinin wuxuu la mid yahay kal xantala bahasha la yiraahdo xantalada oo ah laysa laha riixun riix malaha horta aslan dhacaankeeduna dhadhansigeeduna waa wax qaraar weey marka dadku waxay u kala baxayaan markii lagu kala baxay gaal iyo mu'min muslim ayaa waxa loo kala baxayaa mu'min iyo munaafiq munaafiq quraanka akhriya iyo mu'min quraanka akhriya mu'min quraanka aan akhrinin iyo munaafiq quraanka aan akhrinin xadiiskaas aasoo dadka u kala saar marka waxa weeye inaad darajada aad galayso ka fiirsato weeye walaal darajada aad galayso iyo levelka aad u galayso waana ka fiirsata waxana lagu kala tagay waa quraanka weeye waxa miisaanka ah waa quraanka weeye hadaba عناية بالقرآن في سلف الصالح وحنو كهدلنا سيدا عنايين جيرين او اديا معناها اوغا فكر جيرين قرآنك اي اخرنتيسا waxaa jiray maalmaha kamida waqtigii Umar in ay quraadu yaraadeen oo la waayay dadka wax quraanka bara asxaabta quraanka yaqaanay sida Muaad Ubay ibn Ka'b Zayd ibn Thabit Usman bin Affan ma aragtay la Usayd bin Hudayr adu raga quraada waa yaraayeen wuxuu u baahday Umar dhulkii mu'miniinta dadka muslimiinta dhulkii ay furanayeen waa uu balaadhay oo wuxuu gaaray meela ilaahay uu maarta waqtiga Umar khilaafadiisa lagu jiray markay ugu badneed weeye dhulka oo la furtay oo dadka muslimiinta ilaahay uu nasriga iyo guusha u siiyay marka magaalada Hims la yiraahdo hadda Suuriya ku taala marka ardu Shaam baa loo yaqaanaa ayaa waxa laga waayay wax dadka wax bara quraanka bara la waayay marka Umar wuxuu u diray asxaabtiisii intii taqaanay buu u yeeray oo kamid ahaa Muaad ibn Jabal Ubadah ibn Samit Abu Darda radiyallahu anhuma wa Ubay ibn Ka'b kulluhum ilaahi hakara li noqday wa Abu Ayyub al-Ansari ragaas u yeeray dadka quraanka u baro qaarkood meelihii loo diray ay quraanka u tageen inay dadka ka baraan oo ay ma aragtay hadii ilaahay ku rooyahay tacliintaas ay faafiyaan
ayay ku aasan yihiin maanta. Abu Darda wuxuu ku aasan yahay Dimashq Sham ardu Sham buu ku aasan yahay ragga intoodii badnayd waxa weeye waxay ku aasan yihiin meelihii quraanka loogu dir maba soo noqonba say dadkii quraanka u barayeen. marka quraanka in laga fakaro iyo faafidiisa iyo baristiisa waa laga marmaan. maalmaha kamid ah Umar aad buu u qadarin jiray dadka ahlu quraanka ah. waxa weeye haday yar yihiin xataa majaalista ayuu ku soo dhaweyn jiray dadka kibaarul shuyuuq ay joogaan ayuu ku soo dhaweyn jiray. maalmaha kamid ayuu wuxuu la kulmay waaligii Makka oo ugu yimid Madiina. marka wuxuu yiri yaa oga soo tagtay walaayadii yaa oga soo tagtay yaa haya mas'uuliyadii. markaas wuxuu ku yiri waxaan oga soo tagay Abdurrahman ibn Abza al-Khuzaa'i ninkaasaan oga soo tagay. waman huwa waa kuma yiri Umar radiyallahu anhu waa kuma Abdurrahman ibn Abza. markaas wuxuu yiri waa mawla maarta laakiin a'lamuhum bikitaabillah waa qofka ugu aqoonta badan kitaabka Ilaahay. marka Umar wuxuu yiri rasuulkiina waxaan ka maqlay asagoo leh inna hada alquran quraankan oo kan ah yarfa'u Allahu bihi Ilaahay wuxuu kor ugu qaaday aqwaaman qawman dad buu kor ugu qaaday wayada'u bihi al-aakharin kuwa kalena hoos buu ku dhigay kuwa iska diiday oo xadigiisa ka leexday oo maaragtaa khayrkiisa ka tagay hoos buu Allah ugu dhigay. haddaba ka tegidda quraanka iyo qaadashadiisa iyo barashadiisa yaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo bini aadanku ku kala saaraa. waa arkaysaan mawla waa mas'uuliyadka maxaa yeelay haddaad fiiriso aslan imaamada iyo hogaanka aqra'uhum likitaabillah waxa la rabaa in looga dhigo xeer iyo principle in looga dhigo yaa ugu aqrin wanaagsan yaa ugu aqoon badan kitaabka Ilaahay. ma aha lafdi kaliya aqrintiisa lafdi kaliya ma aha sida ay dad badan fahamsan yihiin ma aha lafdi kaliya quraanka in qof aan hadii Ilaahay ku rooyahay aayaadka uu aqrinayo ahkaamtooda iyo waxa la rabaa iyo wax walbo awaamir ah qofka inuu garanayo quraankan wuxuu diidayo iyo inuu ku dhaqmo intaba. ولأجل هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحا لغا وريي كنا وحان اهين بيري اذا تعلمنا هدانو برانينو قرآنك من النبي صلى الله عليه وسلم نبي ان كبرانينو 10 آيات 10 آيات النبي كبرنا عليه الصلاة والسلام وحوي لم نتعلم ما أينان برنجرين من العشر التي أنزلت بعدها ما أنو برنجرين طبعاً كدن بي بعد كده ما أينان برنجرين حتى نعلم ما فيها إلا أنو برنو وحا قرآن كاسي كسو أروري أو أحكام شرعية إيوه محال يرهدا إيوه دقنا مركان كل دقنه أيان أو من العلم علمي أنا كقاعدنه أيان وجود بجرنا طبعاً كحيجة marka ma aha quraanka Ilaahay in la yiraahdo ma aragta la akhriyo oo la yiraahdo qofkii uu san fahamsaneen cilmigeeda kuna dhaqmeenin xujo noqonaya quraankan. wali ajli hada Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu qadaray inuu quraanka shafiic noqdo fil aakhirah yawm al qiyamah. rasuulku wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam iqra'u al qur'ana quraanka akhriya oo ku dhaqma فإنه يأتي يوم القيامة ما أنت قيامه هو إيمان يا قرآنك شفيعا لأصحابه أسوأ مركز وقرقارية قرب استاقية ودودية ما أردت صاحبك دتك برنجري مركز قرآنك برشديسة وحديقة ضنكو أهوية وحديقة ضنكو أهوية آخرية دونكو أنفعية محايا لي إلهي سبحانه وتعالى
waxyaalaha ilaahay dadka uu ku sharfay waxa kamida quraankan maanta waxaad arkaysaan caalamul islaam dadka mu'miniinta ahaa muslimiintii caalamka ku noolaa inay axallu ay ku nool yihiin xaalad aad u liidato oo maaragta wadiiciin ay ku yihiin oo ay ku liitaan limaada liannahum tarakuu kitaab allah kitaabka ilaahay bay ka tageen ku dhaqankiisii bay ka tageen barashadiisii bay ka tageen maca daalika markaasay waxay doonayaan in loo gargaaro qur'aankii ilaahay bay ka tageen oo waxay doorteen dasaatiirul wadciya oo ilaahay kitaabkiisii ka doorteen waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika humul kaafiruun waa ay ka tageen sharcigii ilaahay markaasay waxay doonayaan in loo gargaaro maya ilaahay subxaanahu wa tacaala qooman buu kor ugu qaadaa kitaabkan oo ku dhaqmaya kuwa kalena waa uu ku hoos dhigaa kuwii uu ku hoos dhigayay ayay noqdeen dadka maanta adduunka ku nool oo muslimiinta ah quraanka waxa loo baahan yahay ikhwaana fillah marka la barto la akhrinayo la baranayo tafsiirkiisa ahkaamtiisa la baranayo in lagu tadabbura loo baahan yahay in la fahmaa loo baahan yahay macaanidiisa in lagu dhaqmaa loo baahan yahay maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka wuxuu ku yiri kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakkara ulul albaab kitaabun anzalnaahu ilayka waa kitaab aan kugu soo dejinay nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam anzalnaahu ilayka mubaarakun xaal uu barakaysan yahay liyadabbaruu say dadkii ugu tadabburaan ugu dhaqmaan u isticmaalaan aayaatihi aayaadkiisa waliyatadakkara ulul albaab yaa ku tadakuraya yaa fahmaya kuwa ilaahay caqli u yeelo marka kitaabkan waa in lagu tadabburo afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha miyaysan qur'aankan ku tadabburayn mise quluubta laga xiray buu yiri allah subxaanahu wa tacaala waliajli hada waxaa laga wariyey ضحاك ابن مزاحم صاحب التفسير رحمه الله حق على كل من تعلم القرآن وحيري وحا واجب أو حقه قف والباء أو برانيا قرآنك أن يكون فقيها إنه يهي متفهمه قرآنك متفهمه قرآنك إنه نقضه وحنا أقريي كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب آيات القرآن كأيو أخريي هذا والله ليال waxa loo baahan yahay quraanka in la fahmo akhrintiisa markaas uu qofku ladadiisa iyo macaankiisa uu ku raaxaysanaya laakiin kitaabka ilaahay lafdi kaliya maxawee ma shaqeynaysa ikhwati al-a'izza wa in la barta quraanka ilaahay oo lagu tadabbura maalmaha kamida Hasan al-Basri ayaa waxa u yimid Qataada iyo rakalo saaxiibadiisa uu jiifay indhiisa isku jiray gurigiisa ugu yimaadeen markaasay waxay qaateen xooga ma aragta fawaakiha oo u taalay sariirta dhinaceeda ayay arkeen markaasay cuneen indhuhu kala qaaday markuu indhaha kala qaado saa indhaha ugu qabtay ayuu isla markiiba wuxuu ku fasiray aayada quraanka ah laysa alaykum junahun fi surati an-nur aw sadiqukum in aad gali kartaan beedka sadiiqiina saaxiibkiina oo wax ka cuni kartaan يو مركيبة بالفير فقيقة انتو اللي تدبر مركيبة وحو كفزر محا يغوتي مادين إيا محا دو عنتين إيا محا دو طابتين إيا مجرن أو صديقكم إلهي بقرآنك كوير مقرن سهل ليس عليكم جناح إلهي بأيري إن آد مارك تتكتان
oo aad ka cuntaan guryaha saaxiibadiin markii uu tirinayay guryaha wax laga cuni karo hadda walaal waxa loo baahan yahay in la fahmo aayada quraanka ah ee fahm عميق qofkana uu isku takallufo inuu fahmo aayadaha iyo quraanka xifdinayo bal waxaan kula dardaarminaha walaalaha taalibiinta ee quraanka baranaya kulla yawm aayada ama aayataynka ama safxada ama safxataynka aad baranayso isku day ina macaanidooda si daqiiqa u fahanto ina si daqiiqa u fahanto ولأجل هذا يوجد كتب وحا لغا قري تفاسيرتا انتا سو كن او كتب لا قري لانه فقه بدن با كسغن iyo tafsiir badan iyo faham badan waxa loo baahay marka in fahamkaas la dalbo hadaba waxa loo baahay ikhwati al-aizaa in lagu dadaalo barashada quraanka kariimka ah waxa soo arooray جاء زيد ابن ثابت زيد ابن ثابت ayaa u yimid rasuulka kaleey salaatu wasalaam markaasuu wiil yar buunaha aad buuna dadka quraanka iyo furuuda bartay sida wax loo dhaxlo ayuu kamid ahaa Zayd ibn Thabit rasuulku u yimid markaasuu wuxuu soo bartay 17 suuradood markaasuu ku akhriyay rasuulka kaleey salaatu wasalaam markaasuu la yaabay cunuga fahamkiisa iyo ku dhaqanka macnaha sidoo u baranayo quraanka markaas wuxuu yiri qofka sidiisaba qurfdinta badan ee quraanka ilaahay ku dadaal fahmada Allah u fura walaajli hada qofka quraanka barta wax ku adkaada waa yirihi صراحه waxa weeye qofka quraanka barta oo xifdiya waa ku adag yihiin wuxuu fahmi waayo kale inay jiraan لأجل هذا quraanku waa sahal barashadiisa waxa weeye qofku haduu si sax ah u barto suurka ugu horeeyo xifdigooda quraanku waa mutashaabih isku soo noqnoqonayo marka qofkaas ilaahay baa fahmada u furaya walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir waxa weeye ilaahay baa quraanka u furaya marka waxa loo baahan yahay ikhwati al-aizaa quraanka iyo in lagu dadaalo waa wax adiga ku anfacaya fi dunya wal aakhirah maxaa yeelay markuu uu Zayd u yimid rasuulka kaleey salaatu wasalaam oo ku akhriyay oo la yaabay fahmadiisa ayuu wuxuu yiri Zaydow adiga waxaan rabaa inaan ku diro kitaab al-yahuud kitubta sida yahuud wax u qorto inaad ii soo barataan rabaa laano fahamkaaga waa badan fata'allamahu hada waa luqadan weey luqada la yiraahdo cibriyada iyo qoraalkeeda iyo fahamkeeda wuxuu ku bartay famada ila nisf shahrin 15 maalmood ila 17 maalmood bay culimada sheegaan ayuu ku bartay fahamka luqad ku cusub oo waligiis ku hadlo liajli quraanka in ilaahi subhanahu wa ta'ala oo qalbigiisa geliyay oo fahmay uu nin ilaahay fahmad badnaayo fahmad siiyay oo aha marka 15 maalmood 17 maalmood ma lagu baran karaa luqad maya waxa way sideedaba iraada haday jirto iraada qawiya haday jirto doonis adag qofku wuxuu doon u baran karaa wax adagna ma jiraan naam juhud bay u baahan tahay waqti bay u baahan tahay dhafrid bay u baahan tahay soo jeed bay u baahan tahay lagu tukada u baahan tahay quraanka ilaahay baa igu adag ma jirto adigaan dadaalin Sheikh Saud Shuraym qaariga Makka ayaa la weydiiyay waxa la weydiiyay ya Sheikh saa quraanka u bartaaba nin yiri waa igu adag yahay quraan markaasuu yiri meeqa jeer baad akhrisaa maalinkii halka aayad markaasuu yiri waxaan akhriyaa wax ka yar 10 jeer hal aayad ku cilcili hal aayad 10 jeer markaasuu yiri ilaa 200 oo jeer aad akhriso quraanka ilaahay barnaamij ma rabtid inaad waqti gelisid quraanka lagu soo dejin maayo marka waa in aad gelisaa waqti ku dhafartaa u istaagtaa habeenkii ku tukataa salaadaha
qur'aanka aad soo celcelisaa saasaa ku baran kartaa haddii qur'aanka ilaahay qalbigaaga uu ku sharaxana oo geliyana ogow wax walba oo aad u baahan tahay waa ku fududaanaya wax walba aad u baahan tahay waxa weey waa ku fududaanaya waxa loo baahay marka ikhwaani in lagu dadaalo yani barashada qur'aanka adduunyo aakhirana mid ku anfacayso maxaa yeelay waatii uu sugnaa xadiiskii yuqaalu lisaaxibi alqur'aani saaxib alqur'aanka waxaa lagu oran doonaa iqra warq aw wartaqi aqri oo fuul darajaadka jannada warattil akhri kamaa kunta turattilu sidaad u akhrin jirtay fi dunya adduunyada fa inna manzilataka manziladaadu waxaa weeye cinda aakhira aayadda ugu dambaysa aad ku intahoodo oo aad ku ekaato oo aad ku istaagto weeye manziladaada aakhiro kor ka bilow ama hoos ka bilow meeshaad doonta ka bilow aqri qur'aanka oo tartiili oo tajwiid ku aqri waajib weeye marka qur'aanka in tajwiid lagu barto واجب ويه لأنه وحويه إلهي سبحانه وتعالى قرآن كان لوقة فصحى ولقسو دجيي وحويه عربية مفصلة أي لقسو دجيي وحلو بهاي قرآن سيدي اللو سو دجيي اللو برتويه أحكامتي سنة لا إلاليو علومتي سنة لا إلاليو لغونا الدقمو آناء الليل وآناء النهار لغو استاغو او لو تاغنا هبينكي ودان وحويه waxa soo arooray xadiis oo rasuulka kaleey salaatu wasalaam ku yiri siyaam wal qur'aan soonka iyo qur'aanku yashfa'aan lil 'abdi adoonka ay u shafaaca qaadaan soonka iyo qur'aanka adoonka ay u shafaaca qaadaan yaqulu li saahibi as-siyaam qofkii soomayay waxa lagu oranayaa wuxuu oranayaa siyaamku oranayaa rabbiyow inni mana'tuhu ilaahu waxaan ka hor istaagay inni mana'tuhu ilaahu waxaan ka hor istaagay at-ta'ama wash-sharaba bin-nahari ilaahu waxaan ka hor istaagay in uu wax cuno oo iska tamattuco oo wax cabo ayaan ka hor istaagay ilaahu fashfa' fiihi ilaahu ugu shafaaca qaad arintaas هداير محن سو شيغني اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه حتى هل كان حديث كان قال وحو أكيديا إن صومك وشفيع قادي أدونك سيدوك ويقول القرآن قرآنك وحو أرانيا أسنه إني منعته النوم بالليل هذينك ينبون كان إتاقنا جري إن أقريو كنت كذو يقولت كذو بوتاغنا جر فاشفعني فيه فيشفعان وشفيع قاديا marka aday ku taala in aad ma aragta hadii la ku rooyahay aad quraanka uu ku shafaaca qaado maalinta qiyaamaha oo aad ku dadaasho cilmigiisa walaalayaal waxa laga maarmaan ah xaalka yaga macal quraan oo quraanka aan kaga sugannahay waxa weeye waa iyo xaalkii ay salafku ku sugnaayeen waa kaafi kala dheerow aad baa u kala fogna waxay dadku ka yeesheen maqnaman dunyawiyan dadku waxay ka yeesheen wax lagu gaaro adduun quraan oo aan yaani barashadiisi iyo ku dhaqankiisi iyo qofkaas uu yaani sidii uu ku heli lahaa dhaqaale iyo income ayaa kaga weyn ما بنانا إن آد هدي لا كورويا نيدادو سداس أي نقط أو مغنما دنيويا اللهم لا تجعل أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا إله الدنيا كي